daayeerkani ma dhibaatada uu nagu hayay beeraha kaliya hay imiga se waxa noogu beeray kiyo guryihii baaranaya oo caruurtii cunaya oo xoolihii cunaya oo waxa la wuxuu cimbanaya aanu jirin saraca la beerayna laba shay oo kaliya baanu cunin imiga geedka la yiraahdo qachida iyo geedka la yiraahdo leendanaad labadaas oo kaliya baanu cunin arabiqi haday tahay aruur haday tahay tigir haday tahay salad haday tahay kaabash haday tahay amba babay haday tahay amba laf haday tahay liin macaan haday tahay qudrada ayu nooc oo dhan total guud waxaanu cunin qachida iyo leendanaanta habeenkii baa cunaya waan ka eegay nool waan ka leeleelin cimilada kale uu keenay baa saddexda habeenimo imanaya u miraya beerihi adigoo fiidkii ka soo caraabay oo maqribkii dabadii inta salaadii ku tukatay ka soo hooyay yaad noqonaysaa 8 habeenimada ku tagaysaa meeshii gelgelina doolka diblaan ba baxay dabalinaynu waalinagu rogi baa badatay war baan karan meena ku xidhno aan dawladda la kaashanayno meena doonan aan rasaas doonan aan maxay waalina rogi baa leeyahay badi waxaan weydiinaa Allah raxmaan mar waxa naga hor joogsaday Sheekh Ciise oo yiri hadii aad rasaasaysaan baad meenaysaan waa waalinagu rogi janaf dawrad iyo saasan nagu culimada qowlkeeda aanu tixgelinayno waxaanu isnidin koombal dhagaroobin horta haynu iska dareerino daadeen rari karna aan ka hayno kaxayntii aanu ku daynayno aanu saaka kaxayeysnay weerar cad buu nagu soo qaaday labada lagood wuxuu buu ka baxay budku hadda 10 jeer ku dhufato ma marayso rasaas waxaan inoo maraya ma jirto rasaastiina anagoo de konton in ka badana kolkan hareerihiiska wada xignada dib qori la qaatay mise ku dhici daayeerka ka ku rideysay ragii buu ku dhacaya markaas saaka waxa timaadeen inaad cabashadii waxaan u nimid dawladdu waxaan doonaynaa inay wixii hay nagaga caawin karaysa daayeer naga caawsan naga qabatada meenal naga xidhiya ciidan loo dalbaya dana waxaan taaganahay inaan amba dhulkii uga qaxno ya wada dawladii ay halkii kale inuu ka fein karaysa ilaa makhluuq inta la dhulka ku noolaa nahay dawladda ay kafaaladeeda qaadi karaysana waxba yaanay ka qabanina iska laato hadana kafaaladeeda qaadi karin anaga waxaan ku asturanahay dhulkayga aan deganahay dawladda iyada oo abood leeyahay abood leh goobtaad ka timaadeen waxa weeyaan goobtaan ka nimidnay wadankan uga qaxayna waxa weey dhalaad meel kasta ceelginiseed butuji quraco meel kasta gogeysi goobaha dhashay wadankaas oo dhan waa looga qaxay baahidina ma gudbiseen maalmaha idin maadan gudida abaaro tii hore iyo tamba in badan oo gudbino oo sheegnay anagu oo wax ka naga qabtanay way jirtay laakiin urur maanta inta leego maanta ka horan ku nimid maanta noo koob haddii ay dadkooga daraynayaan inay wax noo qabtaan daabaan qaxno namay soo gaareen anagu saaka waxaan taaganahay dawladeeda hadii wax noo qabanaysan dhulkayga aan ku asturanahay waxa nooga qabato oo baalka cadowga ah naga caawiso haddii kale mas'uuliyadda qaxootiba soo socdee madaxa halkay dejinaysa iyo si mas'uuliyadda u qaadayso haw diyaar garowda dawladda dhowr jeer hore ma soo gudbiseen cabasho tan waa tii saddexaad weeyaan laakiin anagoo soo banaan baxnay oo bulshada inta leega saaka ku wada markaas saddexda cabasho waxay haayeen daayeerka dartiisa tan noogu daranayno goor walba hadii hay'ad noo timaado iyo hadii dawlad noo timaado baanu ka hadalnaa waa daayeerka weeyaan habeen iyo maalin ka naaxilaana dhig noogu duuli lahayn nin habeen iyo maalinba ka fikiraya wixii uu beeray oo daqiiqad gudaheed iyadoo dekadekana u tagay oo intaasoo adigoo 2 bilood shidaal iyo masaariif iyo shaqaale mushaharkii intaas soo qaadanayay oo isla intaas shaqaale mushaharkiisina ku bixin nolol maalmeedkaaga inaad ka heli intaasoo shidaalahood u gashay inaad ku bixin islaha oo adigoo ka soo caraabay 7 habeenimo 8 habeenimo aad ku noqotay meeshii in la beerba aanad moodin ayaan haysataa marka waqti ma laga yaabaa waqti kasta idin soo galay habeen iyo maalin ma leh 3 habeenimo soo gala uu soo duulaa adigoo 7 habeenimo ka soo rawaxay uu 8 imanaya marka way soo koox u socdo isagoo koox ay isagoo dhanba u yimaada daraartiina hadalkeed badaa anigu waxaan ka socdaa beesha ceelginiseed leeyahay nimankan waa qulaco ay ka socdeen walaaladan marka jaar baan nahay waxaan isku mid baan sheekada oo imika inay ku noo sheegay ayaa noo wada saameysay marka waxa weeye bari waqtigii hore waxa la awlan jirin hadlada beer araabsi iyo garow waxa min qodan jiray qotaladan iyo waxa way nagu yaraan dhulkeena ku yaraan ama ma buucin jirin babaalka oo shaqada ku mulahay garow hadduu ka cunaa ma raqiir ka cunaa xayawaan
dadkuna ha u baxdo duniyada duwaagana ha u baxdo loo dhigay iska caadi baa imiga waxa dhacday inuu wixii la beeriyay bal hada iska daayo wixii guriyaha yaalay baalki u soo jeestay ya caruurti waana aqalka raashinka abdiyaalka u dhigto ana ugu yimaanaydi taasoo saamaysay oo dhib fara badan oo aad u baasan lagu haysa waxa weeyaan waxaan markaa waxa weeyaan halkan dawladda waxaan waanu ka gacabanayna halkan gurigan dawladda hoose ee waxa loo dhisay ee uu dhisan yahay dawladda guri ku yahay ee waa beeraha soo ma ku dhisnaan maayo halkan wixii maxaan ku yiraahdaa nolosha wasiti nolosha wala wadaagay soo ma tahay waxa anaga maanta halkan keenay umaanaan iman cabashadaas oo kaliya waan ku soo baxnay waan soo gudbinay marka waxa weeyaan tii ugu ballaarnay tan maanta keenay sababtoo ah waxaan ahayn maanta 100 nin baan kontan iyaga iyo kontan anaga markaan soo saarnay waan u awood weynay una la dagaalamay imiga rag dhaawacana ku jira kula dagaalamay soo ma tahay waxaan markaa dawladda anoo ka codsanaynaa in la naga caawiyo hadday hub tahay iyo hadday ciidan tahay haddii kale dee waxa weeyaan dhibaatada intaa leeg ee faraha badan leh dee waa gacantaan ka taagay yaa la bi kul gurigii kugu yimaado baalkii ee beer iyo waxa la iskala soo baxo dee waa dhib fara badan oo ballaaran waana taana soo saartay cadceedoo soo bixin baan halkaan nimid 3 habeen iyo 3 daarood ma naseexan dee 6 caanamal waa been baan soo arkaa arrinkan ku sheegay wax been inta dadku isku hawsaabaan maaha waa arrin runa naf baan wada marka dawladda sharafta leh waxaan ku codsanaynaa gudoomiyaha iyo barasaabka gobolka in wax laga qabtaan assalaamu calaykum warahmatullahi taayir wuxuu ku leeyahay marka hore saaka weerarkan aan galeeyta ku baan ka haytaan anu diin magaras ayuu baalku idul maray tii talo ku qabsay darqa liga riday imka xagashan kale ka talaabo wixii si weeyay ku xagay baakiye soo ugu dilay marka dambe marka dhibto haysta walaa beer inta uu la baxay waxa aka tarnaa ma jirtaan xaafadaha waxa jiray tawleed saliid inta la baxo uu la taga buurta iyo madax iska shuba markaas waxa ka meel ka tuura marka waxa uu bilaabo cusub waxa xoolihi iyo waxariye raaw kala soo baxaya beer oo leenayo aqal iyo beer bariya basaga laha marka wax baalkiisa baalka nibadus aad iyo aad u farabaanta waxaan doonaynaa inaan si wanaagsan wax laga qabto dhib yaro anaga noo dawladda u dana